kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah danjiraha qaramada midoobay Soomaaliya oo dacweeyay wiil u dhalay injineer Yariso. sidoo kale warka waxaan idinkugu haynaa magacyada xildhibaanada miisaanka culus ee weyn kara kuraastooda kadib liis la soo saaray. xildhibaan fiqi oo weerar afka ku qaaday hay'adda NISA. sidoo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya safiirka cusub ee dowladda Mareykanka ee Soomaaliya oo si la yaab leh looga gudoomiyay nuqul ka mid ah warqadaha danjirinimo. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan. aynu ku bilownay danjiraha qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa uu dacweeyay wiil u dhalay injineer Yariso. sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo muhiim ah safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale ayaa dacwad ka gudbiyay wiil u dhalay gudoomiyihii la dilay ee gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso. wiilkaas oo lagu magacaabo Maxamed Cabdiraxmaan Cumar ayaa hadda ah xogayaha koowaad ee ergada Soomaaliya u fadhisa magaalada New York. khilaafka danjire Abuukar Baale iyo diblomaasi Maxamed injineer Yariso ayaa waxa uu kasoo bilaabmay sida la soo warinayay shir uu dhawaan ka qayb galay wiilkii u dhalay injineer Yariso. Abuukar Baale ayaa la sheegay in Maxamed uu ku dacweeyay madaxda sare ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya isagoo u sheegay in xilligan aysan wada shaqeyn karin. sidoo kale Abuukar Baale iyo Maxamed Cabdiraxmaan Yariso ayaa la soo sheegay in kal hore ay isku dhaceen balse khilaafkooda la xaliyay iyadoo markii la xaliyay kadib ay khilaafkaasi xogtiisa banaanka ay u soo baxday. xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in la qorsheynayo Maxamed Cabdiraxmaan Yariso in loo wareejiyo magaalada Washington DC ama magaalada Geneva ee waddanka Switzerland magaalooyinkaas midkood maadaama danjire Abuukar Baale oo qaramada midoobay u fadhiyo Soomaaliya uu dalbaday in laga bedelo. ilaa iyo haatan macda waxa sababay khilaafkan cusub ee danjire Abuukar Baale iyo waliba wiilkii u dhalay duqii hore ee Muqdisho oo lagu magacaabo Maxamed injineer Yariso. waxaana xeelerayaasha iyo falanqeeyaasha arrimahan ay sheegayaan in ay la xiriirto arrimo ku qotoma dhanka diblomaasiyadda. dhanka kalena magacyada xildhibaanada miisaanka culus ee weyn kara kuraastooda kadib liis la soo saaray. gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug iyo waliba kan maamulka doorashada xubnaha baarlamaanka ee gobolada waqooyi Somaliland waxa ay soo saareen jadwalada doorashada isku darkooda uu noqonaya 13 ee kamid ah kuraasta golaha shacabka Soomaaliya. doorashooyinka kuraastan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda lagu kala qabto magaalooyinka Muqdisho iyo Dhuusamareeb waxaana kuraastooda ku weyn kara xildhibaano miisaan culus leh kuwaasi oo sanadihii la soo dhaafay ba ka tirsanaa golaha shacabka. Galmudug waxa ay soo saartay liiska 5 kursi oo kamid ah kuraasta doorashadooda uu loolanka adag ka taagan yahay. sidoo kale isha ayaa lagu wada hayaa hanaanka loo maareyn doono halka xubnaha guddiga reer waqooyiga ee Somaliland ay soo saareen liiska ilaa iyo 8 xubnood. waxaan dib u baarnay xildhibaanadii hore ugu fadhiyay kuraasta 13 ah ee liiskooda ay soo kala saareen gudiyada doorashooyinka Galmudug iyo kan gobolada waqooyi ee Somaliland. haddii aan ku hormarno 5 kursi ee soo shaaciyeen xilligan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug waxaa ku fadhiyay 4 sano la soo dhaafay marka aan kala qaadno. kursiga Hob 139 Cabdixakiin Macalin Axmed. kursiga Hob Eber 55 Zakariya Xasan Sheekh. kursiga Hob Eber 51 Xasan Macalin Maxamuud. kursiga Hob Eber 49 Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. kursiga shanaad waa Hob Eber 12 oo ku fadhiyay Yuusuf Xeele Jimcaale. dhanka kale haddii aan fiirino 8 kursi ee guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ay soo saareen waxaa ku kala fadhiyay 4 sano la soo dhaafay xubnaha kala ah Hob 270 Zakariya Xuseen Care. Hob 271 Cabdiraxmaan Maxamuud Caateye. Hob 218 Cadow Maax Faarax. Hob 226 Maryan Maxamuud Ciise. Hob 269 Maxamed Cabdullaahi Kaamil. Hob 268 Maxamed Cali Xagaa. sidoo kale Hob 267 waxaa ku fadhisay Seynab Maxamed Caamir. Hob 236 Adnaan Cismaan Cali Boqorre ayaa ku fadhiyay dhankiisa.
doorashada golaha shacabka ee sanadkan ayaa waxaa inta badan kuraastooda ku waayay xildhibaanadii horey ugu fadhiyay, iyada oo madaxda dowlad goboleedyada ay soo saarayaan xildhibaano cusub oo daacad u ah, waxaana xubno badan oo liiska kore ku jiray xilligan ay ku biiri karaan sida la warinayo saaxiibadooda horey looga tuuray xilka ka mid noqoshada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kalena haddii aan fiirino xildhibaan Fiqi waxa uu weerar dhanka afka ah ku qaaday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay oo ay ganacsatada ku dhaqan suuqa Bakaaraha ku amartay in la furo suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha oo cabsida Daacish u xirnaa ilaa iyo Arbacadii lasoo dhaafay, sida ay xaqiijiyeen wareedyo kala duwan. Qaar ka mid ah ganacsatada waxa ay sheegeen in hay'adaha ammaanka ay bixiyeen amarkan iyadoo lagu hanjabay in la jebin doono albaabkii xiran. Waxaana xilligan soo baxaya dhaleeceynta kala duwan iyo ra'yiyada ay xilligan ka dhiibanayaan xubnaha siyaasiyiinta iyo weliba mas'uuliyiinta kala duwan. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ahaa baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya sidoo kalena soo noqday wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa xilligan waxa uu weerar dhanka afka ay ku qaaday ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Ugu dambeyn, suuqa Bakaaruhu wuxuu u xirnaa maalmihii tagay askar ka tirsan NISA oo dharka bedeshay, lacag baad ah oo badanna ka qaaday ganacsatada. Yaa ka dambeeya dilalka iyo qaraxyada ayuu su'aalahan kaga dhigay qoraalka uu soo dhigay bartiisa Facebook xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu baraha bulshada ku mucaaradaa dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo dhanka kalena eedeymo kala duwan u soo jeediya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo uu ku dhaliilo hab maamulkiisa. Waxaan Axmed Macalin Fiqi intii uu ka tirsanaa maamulka Galmudug uu si weyn u ammaani jiray madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Xilliganna waxaa la tilmaamayaa marka la qiimeeyo xilkaas uu waayay oo uu iska casilay kadib in weerar kala duwan uu ku qaaday madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Galmudug. Dhinaca kalena safiirka cusub dowladda Mareykanka ee u soo magacaabay Soomaaliya ayaa si la yaab leh looga gudoomay nuqul ka mid ah warqadaha danjirinimo. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali waxa uu nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirinimo ku gudoomay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya Larry Andre. Safiirka dowladda Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya ayaa waxa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka laba-geesoodka ah iyo iskaashiga labada dowladood ee Soomaaliya iyo Mareykanka, iyada oo ka sii wada hadlay dhanka amniga Soomaaliya oo ay dowladda Mareykanka qayb ka yihiin. Safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya Larry Andre ayaa Muqdisho waxa uu soo gaaray 26 bishan Janaayo. Dad badan ayaa waxa ay qabaan in madaxweyne Farmaajo uu baday dalka in safiir loogu tago xerada Xalane si warqadaha aqoonsiga looga gudoomo, halkii ay ahayd in safiirku markaasi uu yimaado xarunta dalka looga arrimeeyo ee Villa Soomaaliya, deetana warqadaha aqoonsiga danjirinimo uu ka gudoomo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi kusoo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. Tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.